mahmaahyada tolkeen aan u sheegaya waxay ahayd waa su'aal laba nin baa tartamaysa tolow isahay aan inoo sahmiye ninka labaada wuxuu leh isahayo isagooti kugu soo noqon maayo iyaad qaadan laydeen heesahaadi aad samaysay maxaad noo xasuusinaysaa waxyaalo yar yar oon ka xasuusta waxa kamid ah waad ku mahadsan tahay daawade haddii aad nala soo gaartay halkan fadlan page-ka laag inoo saar oo sii share garay muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan mahadsanid kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa xarunta ismaamulka Mandheera ee magaalada Mandheera magacaygu waa Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Lafagari halkan ismaamulka Mandheera kursiga senatarka waxa ku tartamayo 6 musharax oo iyagu kursigaasi loolan adag ugu jiro waxa kamid ah gaafanaha ama barasaabka ismaamulka Mandheera ee haatan xilligiisa uu sii dhamaanayo senatarka haatan ismaamulka Mandheera kursiga ku fadhiya balse isaguna haatan kasii degayo sidoo kale Ibrahim Maxamed Ali Ibrahim Saransoor oo aad garanaysaan ahaana ninkii dhalinyarada ahaa oo kamid ahaa aqoon-yahanada ismaamulka Mandheera oo isagu baraha iyo bartamaha magaalada Mandheera miiska shaaha u yaalay shaahana ku karin jiray oo aad hadda ka hor aad daawateen ayaa kamid ah dadka iyagu senatarada u taagan Ibrahim muxuu kaga duwan yahay senatarada tartanka iyo loolanka uu kula jiro Ibrahim halka madaxda iyo siyaasiyiinta iyo musharaxiinta la tartamayo ay wataan gawaarida ugu qaalisan oo tobaneeye iyo ka badan ah oo sawirradoodu ku dhagan yihiin haddana codbaahiyaal ay ku xiran yihiin baabuurtaas asaga waxa uu wataa mootada laba lugood leeyda oo wax sawir ku dhaganayn oo isagu uu ku soo maray gabihaan ismaamulka Mandheera intiisa badan meesha ugu dambaysa oo xuduuda mooyaalana uu ku tagay sida Takaaba iyo waliba deegaanada hoos yimaada uu ku tagay Ibrahim wax sawir ugu ma dhagano wax sahayna ma wato dadka waxa uu ka codsanayaa codkooda iyo calafkooda inay ku caawiyaan waa su'aasha inta badan ee bulshada isweydiinayso nin baahan cidi ma booqatee bal Ibrahim anoo sharaxo codka iyo calafka uu bulshada ka doonayo isagoo oo gacan maran soo dhawaad Ibrahim Maxamed Ali Ibrahim Saransoor dadka ku yaqaano maxay ku yaqaanaan Ibrahim Saransoor waa kuma بسم الله محمد لفقري آد باد mahadsan tahay waqtiga aad isiisay waan kaaga mahad celinayaa iyo page-kaada Ibrahim Saransoor horta adiga naftaada igu soo gaartay arday bulshada Mandheera ka soo jeeda nin dhalinyaro oo bulshada Mandheera ka soo jeeda nin tolkiisa uu u siman yahay ee aan qoys ka soo jeedin oo kali qoyskiisa abtirka bas iyo maaragtay qiyaasta iyo tilmaanta lagu tilmaanta uu yahay tolkiisana uu u siman yahay marka inta badan tolkeena waxay ii arkaan nin mar waliba ku kaca falal aan macquul ahayn dhulkan aan ka jirin waxaan aniga ayay ii muuqdaan insha Allah waan hirgelin doonaa dadku waxay ii yaqaanaan marka nin markii la joogaba wax un cusub la soo baxa laakiin wax yowgan cusub waa wax ii muuqda mana aha inaan ka aamusay madaxda maanta joogta mar waliba waan u sheegaa dhalinyarteen waan u sheegaa mutacallimiintoona waan u sheegaa war aan shaaha karsan aan qudaarta banaanka la fariisan aan intaan suuqa tagna ama kawaanka tagna lafaha iyo waxaan aan iibsan sharaabka aan ka hagaajino iyo fuudka aan iibsan waxaan oo dhan waa waxa markaan ku soo daal aan bilaabo aniga marka waxaana iga dhaadhacdoon ogaaday sababta aan hadda u tartamayana ay sabab u tahay waxaan inaan aniga Ibrahim Saransoor bilaabo oo nusqaantan jirta buuxinteeda bilaabo mooyane dadka ilmo fahmayaanba warna waxba uma taray umad sidaad aragteen ay bulshadeena oo dhan aragtay waxaan isticmaalayay mootada laba lugoodka ayaan isticmaalayay 1500 oo kilomitir baan soo koobay magaalooyinkeena Mandheera County meel aan tagin way yartahay tuulooyin yar yar oo jidka iga fog yahay ama adag yahay oo aad u kooban mooyee dhammaan lugtan soo wada mariyay ma sha Allah watahay Ibrahim dadka su'aasha isweydiinayaan waxay leeyihiin Ibrahim inuu mooto ku safro waxa keenaya faqriga iyo tabar xumida dhanka dhaqaalaha ayaa keenay kursiga oo ku tartamay rag ula tartamayana waa rag jeeb kuusan oo mataqaan uusan la tartami karin Ibrahim arintan muxuu ka wadaabay dad qaar waxay leeyihiin film ayuu jilaya arintaas maxaa kaga jawaabaysaa aniga xaqiiq weeye mootaday daayarta ah oo waagi aan shaaha karinaya iga duubi jirtay Maxamuud Rasiid ninka la yiraahdo qolyaha Rasiid ay siyaantaas ayaa ugu weyn gaari aan haysto ana waxaan dareemay in ay jirta nusqaan aad iyo aad u baahsan dhanka hoggaanka taa ayaan doonayaa inaan gufeeyo wata inaad gufayso ama haddii aan si kale u dhigno duleelka aad buuxisaad rabtaa gufayntu waa buuxin adigoo aad u mahadsan
waxyaalaha dadka inta badan isweydiinaya Ibraahimo mootada qoraxda dabaysha iyo wadooyinka qaar oo mataqaanaa mootada ay dhaxda ka banjari karto shidaalka goosan karto inaad mataqaanaa 1500 oo kiiloomitir oo isku weera degmooyin iyo tuulooyin kala duwan ismaamulka Mandheera aad ku tagto maxay kaaga dhiganta والله وحوين أو وين أو قيمة بدن بقى ديجان تاي هرت موتة واي قاعدة تلكي جن واي جيسي مهمة دنا وإن تلكي جو تجاي أهد وحي أن معركتي هي هيكس جاي يورنا وان أشرحي سدح مرة بقى بنجرتي سدح دي بمجالوين وبقى بنجرتي تلقى وحيسين جري شدالكو كامل جري دات فرا بدن وقيمة بدن ومقعود وذا شيء كرين أي شدال إن شاء الله وبيتك فيسبوك وان كوسو قري دونا تنا هذا يويسورجش وان كوشرح دونا wax qiimo badan ba iiga dhigan tahay gaariga yarka inuu tolkayga iigay tolkaygana aan codka ka soo helay waa tahay waa lagu dhisay baa lagu yiri marka maadaama aad tolka waa bulshada ismaamulka Mandheera oo kala sooc lahayn hadii aan sharaxo dadka qaar tolka waxay maleynayaan jifada uu ka dhashay ama qoyska family ahaan Ree Ibraahim Ali ama Ree Ibraahim Maxamed Ali ay dadka qoyska u qabaan qoyska uu sheegayo ama tolka uu sheegahay waa gabi ahaanba bulshooyinka ismaamulka Mandheera cid walba ay tahay ana sharaxayo sababtoo ay tahay luqadiisa Ibraahim aad u garanaya waxyaalaha qaar dadka su'aalaha inta badan la isweydiinayo waxa kamid ah oo dadka weydiinayaan hadii lagu ka xantaay waxa la yiraahdaa Ibraahim saaxiibatiin hadii waxaan uu sameynayaan wax suurtagal ma nimankii 20 ka gaari 30 ka gaari watay oo sawirada ugu dhagnaayeen oo qarashka bixinayay oo intaas oo mataqaanaa hanti bixinayay yaa aan haysanin kalsoonida uu Ibraahim isku qabo kalsoonida xaqu ka keenaya baa la leeyahay mid kale dadku hadana su'aasha ay inta badan isweydiinayaan Ibraahim waxa kamid ah dad baa soo saar oo tolkooda soo saaray Ibraahim asay soo saaray leeyahay su'aalaha maxaa kaga jawaabaysaa mid kalsoonida ah aniga ayaa run sheegaya runta ayaan sheegayaa ilaahayna wuu igu ogyahay tolkana wuu ila fahmay weligayna intaan tababariyo 10 iyo dhowr sano runta baan u sheegi jiray wayna igu barteen kalsoonida shacabkayga ayaan ku haystaa waana ka gudoomaya waana ku bartay mid labayso raggan aan la tartamayo aniga uma arko in ay iga sareeyaan uma arko maxaa yeelay 10 sano 20 sano 30 sano iyo dhowr ka badan rag soo shaqeyn jiray ayaa jiray duleelkan ii muuqda intaan soo koray wuu ii muuqan jiray la fagariyo adigana primary markaan soo dhameynay waad igu soo gaartay horta saaxiibtinimadeena mid shalay ah ma ahaan boysam primary markaan ka soo baxay adna waad iiga dambeysay waad igu soo gaartay marka raggan dhan ee shaqadan ku jiray ordaya hal maalin ah kama dareemin waxyawga aan hiigsanay ayagoo taabanaya waan u sharxaa mar waliba sida darteed kalsoonida bulshada ka haysta runta aan u sheegay anigoo dareensan inaan buuxin karo boosaska banaan ayaan ka helaya awoodda inta la eg laakiin su'aasha Ibraahim meeshaas ka soo baxayso dadka qaar waxa ay qabaan ama ay isweydiinayaan waxa la leeyahay ninkii magaalada Shaaha ku karan jiray la fagariyo oo garanaysi wuxuu la tartamayaa ninkii ismaamulka Mandheera 10 ka sano soo xukumay sida isu qabanaysa adoo Shaaha karinay magaalada Shaaha ku soo kari shilinka iyo shakhsiyadda way kala yihiin aniga shilin la'aantayda awood badan baan ka helaa sideedaba horta lacag ima xanibto linka tacbaanka ee shilinka uu xanibo waa ninka aan tolka haysanin anna waxa weeye 2 milyan ee Mandheera county joogta ii wada tol ah maani haday su'aashaada horna waxa ku jirta idoo qofna soo saarin wallahi inaan qoyskayga hoos cid ka dhalatay u tagin oo isoo saar dhihin aniga bulsho weyntayda way ii siman tahay si siman bay ugu codaynaysaa waa tahay safarkan muddo intee leeg ayaad ku jirtay goormeesay dib ugu soo noqotay magaalada Mandheera laba mar ayaan magaalada Mandheera ku soo noqday maalin baan joogay waa ka noqday haddana saaki aroortii ayaan soo galay waa taan xali ku balansaday ma sha Allah oo isla sheekaynood khadki ii soo gashay khayr badan Allah ku sii adna waan kaaga mahadnaqayaa in badan oo badan saaki markaan saa u soo galay khadkan ku soo galay aroortii tan insha Allah 6 saac 7 saacna waan noqonayaa oo meelihii u dadambeeyay meeshii baa ka soo ridi lahayo asxaabita ayaan ku sii aadanayo waan sii noqonayaa hadii Ilaahay idmo mootadaada waa ku noqonaysaa mootadayda ayaan ku noqonayaa halka ayaan ku sii jaaxayaa insha Allah waxa weeye meelihii ugu dambeeyay ayaan asxaabta gacanta soo marinayaa oo aan u soo sheekaynayaa hurdina oo ha hilmaamina ayaan dhihi waa tahay laakiin inta badan dadka ololaha siyaasadda ku jiro dadka waxay ka codsadaan inay qarashaad iyo mataqaanaa wax ay siiyaan adi markii adoo gacan maran markaa tagto ninka qarash buur ka mataqaanaa ka lacag badanna oo deegaanka ku taamaro wixii aad sheegaysay iyo wixii shukaansi aad samaysay ka soo noqonaysa Soomaalidan waxay tiraahdaa way ku maamaadaa
soomaalida rixin ma fiirisa ribix bay fiirisaa haddii aan wax ribix ama faa'iido laga helaynin rixinnimada laguma fiirinayso lama oran karo waxan waa siyaasadna ma taqaanaa saaxiib joogta ama muhiimadayda dhanba waa in aan mahmaahda bedelo iigu soo celi mahmaahda ood leedahay Soomaali waxay fiirisaa ribix ee ma fiiriso rixin waxaan rabaa Soomaali inay rixin fiiriso ribix ka tagta muhiimadda iyo waxa weeye ubucda arrimaha aniga aan wado waxaaba kamid ahba maxaa inoo dan ah Soomaaliyay ee shakhsiyadan iyo anaaniyadan iyo waxaan oo idan nimankan jeebka weyn markaan meeshin maray ay maraan والله سيد أنا قال لي سودوي نوع ولا فهمي لو ما بفهمه وابا الله يا بابا وركي موتده كوس عليه تعبان كهين هذا شهر زيني كاس أيام نوع قيمرون أيام بدك أنتوا هذا بدن بدهان مدة كلا صومالي ذا اسمه الكمانديرا في قبلي بيوحكوا قيب سدان قبيل هبل جافنا يلين قبيل هبل حكاس يلين قبيل هبل صار ما أورنكرو كرسي هذا دوتها جنتهاي بيش هذا كراس كلا قادتي dheeri baad ku tahay ma taqaanay kala qaybin baad ku tahay kuraasta kala duulaan ku tahay soo lama oran karo dadka sida qaar ay qabaan inaad codkooda ku kala qaybiso dad baa sida ayada moodaya horta codkooda ma kala qaybinayo oo cod kala go'aya malahan hadii ay gaafana wateen oo dibiti haysteen dibitkoodii iyo gaafanahoodii ayay soo dhisanayaan MB kama qaribayo MCA kama qaribayo bulshadaasi codkeeda ma kala goynayo dadka si xun baa looga sheekeeyaa oo saransoor si looga diray wax qaldan baa laga dhaadhiciyaa ma kala goynayo inaba ha yaraatee laakiin waxaan doonayaa inaan bafuro siyaasadda si loo helo bulsho maskax furan oo ayaa nooga roon la dhahay qows hebel yaan amba la iska siin laakiin siyaasadda macnaha nidaamka loo qaybsaday kursiga hadda aad u taagan tahay ragga kale ee beelaha kale ama kulugu taagan kuraas kale ayay in ka dhisayaan marka kuraasood markaad ku farageliso soo beesha aad ka soo jeeday maadaama Soomaali 4.5 ay tahay wax la qarin kara aysan ahayn oo ay nacayb ahayn xaqiiqda marka isu sheegno codkaas inaad kala qaybinayso dadka qaar waxay qabaan ugu yaraan 2% ha ahaatee inaad wax dhinto ay dadka gadaal ka riixayaan codki aad kala qaybiso oo arrimo siyaasadeed ay dad kale ma taqaanaa ku lagu jiraan arrintaas ayada maxaad ka leedahay ololahan aad mootada ku wadana si aan lagu fahmin in lacag lagu soo siiyay oo ay dadka kale macnaha loo dhihin qarash buu wataa inaad tusto inaad cid wax ku siisan jirin oo gacan marantahay laakiin bangiga inuu ku buuxo dadka la ku soo maalgeliyeen arrintaas waxa kaga jawaabaysaa wallahi horta tii hore aan weli ku sii celiyo ku soo carrabaabtay codka ma kala goynayo mid labayso shakhsi ima wato oo nin la wato weligiiba ma noqon wallahi wax badan waa leela hadlay asxaab badan baa ila hadashay war waxa lacag aad rabtay waxaad shaqo rabta sheego anna waxba ii muuqda higsi baan leh shilin ima dharjiyo bulshadaas ayaa ii dharjiso tan kala shilin ma wato aniga shaqada lagu ballan qaaday hadaa isdaba marisay codkina aad heli weydo ma waxaad ku noqonaysaa miiski iyo tarmuusidii maad ku noqonaysaa muddo hadda ka nasad ka xishooni ma la fagariyo ii soo noqo kaali iyo duub miiski ayaan ku noqday haddana waan ku dhihi oo kama xishoonaya shaqo ayuu nooc aniga waan wadayaa laakiin lacag ima dharjiso waxay yiraahdaan shayniiska maahmaahdiisi safar kun tilaaba ah hal tilaaba ayay ka bilaabataa kun mayl ah hal tilaaba ayay ku bilaabataa waxa maanta aan hiigsanaya waxaan doonayaa 50 sano soo socotana hal la gaare hadii aan noolaado bulshadeena inaan ka dhaadhiciyo oo waa maxay ayaa nooga tabaroon ayaa nooga muhiimsan ayaa fahmaya danaha bulshadeena xaasidna aan ahayn calooshiis u shaqaystana aan ahayn inaan soo saaro oo bulshadeena la fagariyo waxaan hiigsanayo bulshadu u sheegay waxay ahayd 25 sano soo socota ninka umri ku gaar wiilka ama gabarta suuqa maxaad la imaaday maxay iibin muxuu iibinayaa muxuu hayaa xirfadiisu waa maxay in lagu tashte iyo ka dhashay iyo ka soo jeeda inaan marnaba laga hadlin taana waa inaan aniga bilaabay aniga baa fahamsanay bulshada rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in barnaamijka aad wada ay kula fahmaan maadaama levelka maanta aad maraysa ee bulshada aad moodeynay inay mataqaana la qabsan lahayd oo sheeko la yaab leh ku tahay sideed bulshada uga dhaadhicisa arrintan rabitaankaadan iyo mashruucan aad wado oo ku ololeynayso bulshada sideed uga gadaa sideed ku aqbashaa horta ololaha aan wado 30% bulshadeena waa ila tilaabo qaaday oo si dirta ay ila qabsatay ila fahamtay 30% da'deeda ay ka hooseysa 40 ka ah 10% way yaaban tahay oo waa maxay baltalow maxaa ka soo bixi doona meesha 40% ayaan ku haystaa horta 40 ka si toos ah ayaan codkooda ugu xisaabtamaya waa 40% bulshadeen waxa ii soo hartay 10 kala oo dhahaysa
wuu ku degdegay tobankaas boqolkiiba waxay leedahay arle wuu ku degdegay MCA buu ka soo bilaabi lahaa MB ayuu ka soo bilaabi lahaa meel fog buu ka bilaabay marka ayadana waxaad moodaa tobankaas oo boqolkiiba kontonka horaan ku wadaya tobankaas marka waxay leeyihiin wartalow ninka horta muxuu wadaa kollayba lacag inta la siiyo shaqo loo ballan qaado uu joogi doonaa bal suga hadda meesha aan maanta soo gaarsiiyey tobankii ayada ahaydna way ila jaan qaaday horta boqolkiiba konton ugu yaraan bulshadeenna nin weli ila yaaban iyo nin tilaabada si toos ila qaadayba boqolkiiba konton ugu hooseyn bulshadeenna gacanta ay hadda iigu jirto waa ila fahamtay warka waa tahay rajaynta leeg ayaad ka qabtaa boqolkiiba inaad kursigaas ku soo baxdo oo ka noqoto duqa ama maxaa la yiraahdaa aqalka sare aad ka mid noqoto ama senatarka ismaamulka Mandera Ibrahim Sarasoor la yiraahdo ninkii shaaha magaalada ku karin jiray baa senatar ka noqday ereygaas ama hadal bixintaas inay ku baxdo boqolkiiba meeqaad filaysa horta alla agtiisa ka qoran cid ku fariisan lahayd kursiga asaga haddii ilaahay idmo allahumma maalikal mulki tu'til mulka man tasha asaa bixinaya horta midan waa ii go'an tahay qabow iyo kulayl midna iguma haysa hiigsigaygana waa bulshada wax ka bedel midda labayso qiyaas ahaan sida aan doonaya haddii ama aan soo arkay inta aan socday waxaan isleh boqolkiiba 60 tuuga Allah naga qabto ayaan horta bulshadeena waxaan dhahayaa eebow tuuga naga qabo maxaa yeelay oo maxaan ilaahay ugu baryayaa inuu tuuga ilaahay naga qabto xil oo tuugid ma aha hawsha ayada laakiin tuugadaas haddii eebo naga qabto boqolkiiba 60 ka badan ayaan qiyaasanayaa codka inaan ku guuleysan doono 60 haddaan gaarsiiyo tagtayba hawsha waa Ibrahim Sarasoor sanadka 2022 insha Allah Mandera iyo bulshada ku taqaanay intaan ku aqooninba hadalkaas jawaab kulul ama aad ku qanacda ama aad ma taqaana ku qancin waanu ka sugi doonaa insha Allah taala bulshadana aragtidooda waanu soo bandhigi doonaa microphone la dhaxmari doonaa markii aan taas ka soo gudbo Ibrahim inta badan ismaamulka Mandera siyaasiyiinta markay ku tartamayaan deegaano kala duwan bay tagayaan maanta toddobaad ahaydeen mid baa tanasulay ragga tartamayo waxa kamid ah sanatarkii hore haatan waqtiga uu ka sii dhamaanayo gaafanaha ama marasaabka ismaamulka Mandera oo isagu haatan xilligiisa sii dhamaanayo rag culus baa la tartamaysa adna nin dhalinyaro ah Ibrahim oo kugu celinaya nin dhalinyaro tahay oo dhaqaale haysanin arintaas Mandera haddaan marka la ku weydiiyo sidaad uga gadaysaa 40 waa 10 waa ila yaaban yihiin baatiri kontonka kale maxay ku haystaan haddaad bulshada u sharax waad naga qarisay kontonka kale waxay ii haystaan nin geedka kor ka soo fuulay nin geedka kor ka soo fuulay oo waqtigiisa sugin anna waxaan u sheegay war xilligii aan taaganahay geedka kor kama soo fuulin geedka inaan fuulay aad moodaysaanba gacantaydu la sameeyo baarkiisaan hayaa caleenta ilaanta ugu sareysay ayaan gacanta ku hayaa maamulkana aniga ayaa ugu fahamsan 2013 waad xasuusataa hal ul baa lagu socday cid ka hadli kartay balaha 17 labaan u jabnay 2017 nimba xuluf 2022 xulufaysi bay noqotay marka waxa la leeyahay barnaamijka qabiilka iyo reerka laga gudbay isfahan iyo xulufaysi bay noqotay aad iyo aad aniga markaan hadda soo wareegay bulshadeena xaafad kasta ilaa lacag la'aan baan ahaa rag qaymo badan oo isoo caawin waa jiraan oo dibadda jira nin la yiraahdo Nuur Faarax oo maxaa ka galay Facebookiisa ugu qoran yahay iyo maamada la yiraahdo maama Khadiija Buko anigoo maraya meesha la yiraahdo Shimbir Faaduma intay ugu joojisay wiil eed inay u tahan u malaynaya MB u istaagan Mandera South u taagan gaariga joojisay wariya istaag bay tiri soo xaray gaariga way soo xaraysay mootada ha gaariya dhahay lama dhihi karo mooto laakiin ma ogoli ha way xaraysay waxay tiri shaahi dhaafif يعني أفكار شهو كري رخصة مركا كلمة عن مرنبا طبعا معلومات شدال كيدين وين إسيساي مركا وحيقول شاهد أبيف قبرتي كوقيلس مركو حلنا ضدنا وإمال قشنا يان نمكي لا ترتمع أيها ضدك مال قلنا أنا واللي مال قشنا نعم حوله هذا وحوله عن مال كبحن حوله أنا اللي يجوا بحشية طلق إسيسي شاهد أبيف قبر مركا يتري مال بيجوا قرنتي قبر شاهي كرسي إمام خديجة ينوع أي إمام وشي وحمل وين إجا جواي ويلي شركة تكابا موتلي ده عنه يبيه بعض يجي سبوحيان وحمل وين إجا جواي oo taakaaba maxkil waahiri iyo waxa way burdirasan soo seexday oo rag saaxiibaday af Soomaali afka maayga inuu originalka yahay oo hooyada maxaa tiriyay meesha aan ka soo fahmiyay duq wuxuu yiri ugaaska aan ishelnay ka imaaday dhankan kale mooyaale bah soo shan buure so
waa hilibkii moogtahay original soo shambi hilibkan markaan yacni soo galay hilibkii dee originalka soomaalida liigu qaabilayay oo lii sooriyay soorta lii samaynay sooriyadii sooriyo qurux badan iyo shaahi la yaqaanay iyo noocii lii qaabilay aniga ayaa lii maalgashanayay war waa kan war soo fariisi hilib sii shaahi soo sii shaahi dhaabif soo dedeji okay markii noolaado oo wax kasta bacdayda lii buuxiya shanla shidaal oo dusha ii saarnaa iyo shanla hore aan ku shubtay liigu shubana sii soco waaya magaalada ka horeysana waa liila sii hadlay hebelow ninkii saransoor baa in ku soo socdo sii qaabila horta sidan baan ku socday marka nin la maalgashtay oo tolkiisa maalgashtay rag baa la fikiraya waxay isku dayaan inay iga dhaadhiciyaan wax aad iyo aad u liita oo wax aniga aan ka gelwada ahee qaabdaraneen bulshada inaan ka tirtira adiga oo saransoor ibraahimow maxaad tuulooyinkan abkay garaha uu degan yahay abkay murulaha uu degan yahay la dhex wareegaysa habeenba meel u seexanaysa war waxaan ku yiri ma anigoo laandheera ah oo Soomaali ah oo waxa weeye garra tuufi quraan iyo taakoyga weytaan iyo Soomaalida guudkeeda iyo sade dhinacyada ay iga jiraan ayaa doonaysaan asxaabi iyo meeshin riyaha ku cilcilin jiray inaad ugu soo cilisaan يعني نصبت كادليان ويكبهدليان سوما أركيس حدودي جفاي كادليان أنا هدي سومالي ديان بيقول في النانو وحندوني يا إنا جلوبالي أرق اللي فجريو بهالكلي هذا جرجركا سحابته أما بحاول هقش الدش هذا أنتوا لالو أيو هالك أوارتي سكقب صدا وما أنت جربها في تصدا دنيا ذا إذا الساء وقته مركي يقول صلاة بيان ماشان ريها كراعي جري marka waan ka sareeyaa meel kasta oo saa u imaado qofka aan igarnayn Ibrahim Saransoor tintaydu yaqaan markuu arko ama aniga waa Ibrahim Saransoor aan isla markii toos baa li qaabilay horta fariisi gaariga jooji shaah cab aad noo furtid warka waa tahay reemadheer oo dhan inay meeshii aad wareegaysid lagu yaqaano lagu barto xageel sidee lagu bartaa aniga hore baa li garan jiray horta waxaan sameyn jiray tababaraan sameyn jiray taakaabadaas waan aadi jiray baanisa waan aadi jiray lafay waan aadi jiray celwaq waan aadi jiray mandheeradan waan ku wareegi jiray tabarta meesha ay diida mooyaane marka training kan ayaan sameyn jiray si dhab ah ilaahay ka cabsasho ku dheehan oo tolnimo ay ku dheehan tahay oo xaasidnimo lahayn ayaan tolka ugu sheekayn jiray aanun cidna u gafaynin waa tahay aad buu u mahadsan yahay Ibrahim Maxamed Ali Ibrahim Saransoor oo isagu kamid ah musharaxiinta sanatarada ismaamulka Mandheera hadda kuraasta aqalka sare ku tartamayo oo iyagu ka kooban 6 ayuu kamid yahay waana ninka ugu dhalinyaraysan uguna da'da yar way waana su'aasha inta badan bulshada isweydiinayso oo ka dhalatay in la yiraahdo geedka kor ayuu ka soo koray asagoonan ma taqaanay soo marin MCA ama wakiil deegaan wixii ka hooseeyay ama ka koreeyay midna soo marin ayuu ka bilaabay lagu leeyahay in ismaamulka Mandheera uu ka istaago halka la rabo inuu ka soo bilaabo inuu deegaan u soo tartamo kadibna u soo tartamo ma taqaanay gobol ugu dambeynna ismaamulka Mandheera u soo istaago Ibrahim sida aad xogtiisa ku maqlayseen ama waraysigiisa aad ku daawateen ma ahan nin dhaqaale haysto oo xataa shidaalka waa loogu shubayaa shaahana waa loo kariyaa halka caanaha iyo waliba waxyaalaha biyaha ana loo soo saxay taas waxay ka dhigan tahay in uusan ahayn musharax qarash ku bixinayo ololihiisa siyaasadda hadduu ku bixin lahaana waliba aan haysanin sida uu sheegay bal su'aashiis inta mudan dadka Soomaalida aan uga baranay waxa weeyaan nin baahani cidi ma booqatal ilaa nin baahani cidi ma booqato marka nin baahan sida uu doonayay in lagu soo doorto waa su'aal jawaabteeda loo baahan yahay calaamadu su'aal waliba gududan oo weyn badan ayaa saaran balse asaga waxa uu leeyahay blue and green tick ayaa saaran buu leeyahay cagaarka tick ayaa saaran waana ku faraxsanahay buu leeyahay aadna uu qanacsan yahay sida hadaladiisa ka maqlaysan balse la isu joogo maanta waa sabti axad iyo isniin bes ayaa ka haray maalinta talaadada waa doorashada arbacada ama khamiis ama jimcaha xogta rasmi waa la helo waan soo waraysan doonaa markay ay soo dhamaato doorashadana waraysiga hadduu guulaysto hadduu guuldaraysto waa in horkeeni doonaa aad ayaad u mahadsantihiin halka aad naga daawanaysaan waa page-ka iyo YouTube-ka Maxamuud Lafagari Ibrahim Saransoor ugu dambeyn wax aan ku weydiinin oo saran lahayd Lafagari kuma weydiinin inuu ku weydiiyo habooneed ama aad go'anayso ood ka tagtay isahay oo isagooti kugu soo noqon maayo midna wuu ku sahmiyay in la sahayo raba isahay yar baa taala in yar oo qaloon ah in yar oo dareerino aan gaganiya buraashad biyo intan weeyaba sahayda dhan oo la haya
waa laba nin way tartamayaan wuxuu yidhi walaalow kuwan igu sahayo igu sagooti kuguba soo noqon maayo mar dambe cid inuu faramariyo uun ku soo noqon waxna u tarin buu rabaa qaaday sahayda markuu qaato reerkii welis wuxuu u baahan yahay in loo sahmiyo ninna wuxuu leeyahay war may kan iga daa waa la sagootinayaa hore baa loo sagootiyay aniga ii dhiib sahaydan yarta su-aashaas reer Mandheera ayaan ka rabnaa jawaabteeda Ibrahim heesahaadii aad samaysay maxaad noo xasuusinaysaa waxyaalo yaryar oon ka xasuusta waxaa ka mid ah meel ay hogada heshay baan soo helowda anigu yee kaali ilaha yaamo meel ay hambasha doogiyo hoobaanta geedaha hoos ula leecday laantaan soo helowday anigu yee kaali ilaha yaamo ilahabo hanaan wacan heesno haboonay yacni waa sahankii soo ma ogid waan soo heloodo waan soo noqdo reerkan raraya marka gabadhii haboon baan weli la hadlayo waxaan nidhi haddii aad haneedido yacni waan ku luqaynayay haddii aad haneedido hashataada huunoy ood haruubka buuxido ayaad ku habis leedahay ma horor dhurwaayo hambo aanan reebayn hedhahuuno siida ama hanaadkii loo dhaqay hanaqaadka beeshiyo haldhaageena geesiga haldoorkeena dhiifoon midka teen ku howlani hurdadana u waayo habeenkii oo dharaartii hawshiisu ay tahay horumar wacan horseedo hanka sare u qaado sheeka noocaas ayaa gaariga ii saarnaydoon oo bulshada ku kicinayoon u sheegayna laakiin inta badan dadka naga reer Mandheera heesahaas hadday fahmi waayaan ka war adiga aad ku waan ku dhiibi doonaa beejkaadan waad gelinaysaa way dhageysan karaan waxay tusaysaa nooco yacni meesha aan sheegay waxaa weeye hanad adi filkaada ah in uu sidii haldhaa faras ku heensayo abidka habidnimo weeye yacni ka hurdada ka toosoo hurdada dheer hanka sare u qaadno sheekada way yaro dheer tahay ilaa 5 daqiiqay gaaraysaa waxay taabanaysaa dhibaatooyinka iyo hoggaanka maanta joogay siduu yahay laakiin cidii fahmayso ayaa fahmaysa heestaas ayada cidaan fahmaynin waxa weeye waad ku bantaa ku oran karnaa lafa gariyo waxaa kaloo oon doonayaa bulshadeenna inaan tacliimino oo tolweynaheena hooyooyinka aabayaasha dadkan iskoolka gelin dugsiga quraankana loo soo bilaabo waxa weeye farta ingiriiska meeshii 5 sano ku dhamaatay haduu ilaahay idmo bidax iyo midigba inay ka soo qori karaan oo casirka markii la gaaro macallimiinta iskoolka primary ay ka soo baxaan dhammaan hooyooyinka tuula chiefafkeeda in loo qaybiyo gruubyada madax loo wada sameeyo ay galaan casirka ilaa 2 saacadba waqtigooda sidoo kaliya 5 sano meesha ay ku dhamaato hooyo waliba ay awood u yeelato primary imtixaan inay u fariisato taa waxay noo suura gelinaysaa haddii eebe idmo fikirkeena inuu sare u kaco dadkana loo hariiqaya hadeertan tuugada waxay samayn kartaa waxa weeye way hariiqanayaan qofkii meeshuu rabay ma meel kale loo hariiqi karaa waxa kale oo ula jeedaa furaha asaga waa furaha aan doonaya jahliga inaan ku furo maskaxda hurdana aan ku kaajiyo shaqadayda oo dhanba waxa weeye hurdaayow toos hodan baa tahay toos hiigsigaada sare u qaad ka kaco hurdada dheer shaqadaydu waa batan maskaxda xargagtay sidii jifaha geela dhimbisha lagu dhalaalinayay weeye tacliinta iyo hiigsiga iyo qaylada aniga aan la heysay taa weeye midaan bulshada doonaya inaan sare ugu qaado waa tahay aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Maxamed Cali Ibrahim Saransoor ayuu ahaa aniga oo Maxamed Lafagari ayaa halkaan kala socodsiinayay barnaamijka xigo intaan ku kulmin doono waxaan kaga tahay sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu doorashada ay muddo kooban ka dhiman tahayna wixii ka soo baxo guul iyo guul darrana Ibrahim markare ayaan kaamirada hor keeni doonaa wuxuuna cadeyn doonaa wixii uu kala kulmay iyo natiijada uga soo baxday doorashadaasi guul iyo guul darro iyo waxa isaga ka guuxayo haatan iyo mar dambaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ما شاء الله thank you very much aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa clipkan wax weyn buu igu fadhiyaa ما شاء الله rag badan oo sidaad oo kale caawiyay oo fara badan oo halmaami karin way joogan sida oo kale ayagan waan ugu mahadnaqayaa in badan oo halkan ugu gudbinaya thank you very much waad ku mahadsantahay daawade haddii aad nala soo gaartay halkan fadlan page-ka laag inoo saar oo sii share garay muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan mahadsanid